daawanaysaay caaw waxaan ku sugannahay ama aan jeclahay inaan waraysiino kooban aan ka qaado maxamed cabdi qallo horta aad si fiican wada garanaysaan dhanna ah mutaankayga dhinaca barnaamijka cawayska dhan ah walaalkay igu qaali ah dhan ah abwaan yaro imika soo ifaya moogteesiisuna way fara badan yihiin waxaan jeclahay inaad barnaamijka si aad ka daawan kartaan munasaqadii waa channelkayga YouTube aan ku leeyahay sidoo kale qalin media sidoo kale real isaguna Soomaali forka inta soo channelka doonto ayaad ka daawan kartaa maxamed cabdi qallo aad iyo aad mahadsantahay Munay waa ku mahad celinaya in maanta aniga aad wareystaan dadka wareysa jiray dabcan ee wadaba laatoodii wareysanaysa oo qaadana wareysanaya waxaan ka wareysanayaa bariyahan dambe reeyo sameeyay maxamed cabdi qallo heesa fara badan oo qaaday fanaaniin kala duwan أدي سوق هذا وحبا قرمه sidoo kale xayaad xikma qaaday sidoo kale waxa qaaday Andrisa Kaka Hussein Fagaase Marga Abdirashid Gowdan heesa kale uu fanaaniin u dhiibo iyagu soo socda jira anigana taydu way soo socdaa kama maqna meesh aad iyo dad baasad tahay dartii waanu heesay heesa dhiibo waa ballantaas aad iyo dad baasad tahay walaashay bal suugaan bad samaysaa heesaad samaysaa horta dhanka gabayga marna isku dayda markii ugu horeysay horta waxaan suugaanta gabigeedba markii ugu horeysay gabay baan ka soo bilaabay oo inkastoo marka hore aanan u kala aqoonin suugaanta nooca hadiyada qaabka laakiin istabadhig tiriyoon ay ahayd aan ma had celinayo nin la yiraahdo Khadar Rambo oo wax badan marka loo eego suugaantan urinay ifahansiiyay marka hore wadon bay iga haydo تقرأ دير سميسو طبعا ديها مركا ولي بوحن ديها سبدن ما جرا هاستك أنا لما هي صوت بايجو سامين بدن وحن سميه وحن سميه به لا بايجو سامين بدن مد كهاد ليسا هوي أو ولي بانو سميه معلمنا نوق على هاد ماما ابتسام إبراهيم إسماعيل هاستاسي مارك عبد الرشيد باللحن كيو موسيقى بصاري قول ما أنت وأقول ما قاعد بستحاديو لك اللغم وجيه لولا كوغو ديقي لولا كوغو ديقي ما أنت وأقول ما أنت وأقول ما قاعد بستحاديو لك اللغم وجيه لولا كوغو ديقي لولا كوغو ديقي كما مرني بليه جندا كن معسون إبو كن معسون إبو معسون إبو كن معسون إبو مولا حيلا كايلا لمرق ذمامو كايلا لمرق ذمامو مولا حيلا كايلا لمرق ذمامو كايلا لمرق ذمامو عاد كان يسقى قاضية هستا laftigeedu waxa kaga waramayeen waayihii macallimeen soo garab istaagnayn inay noo hayd garanaysa hooyo raba hooyade dhaba oo na dareensiisay waalidnimada noo hayd marka ugu horeysay maxamed waxa samayso dareen noocay kugu dhaliyay inaad ha samayso wallahi wallahi ma qarnayo horta inagii waan is hor joognaa waxba ha qarin horta nolosha dhalinyarnimada markaad ku jirto marxalado kala duwan maad maraysaa mar jacayl baa kugu dhacaya mar jacayl baad arkaysaa mar suugaanta marba marxalad bay kula maraysaa adiga aniga heestii ugu horeysan ku weydiin wixii kugu dhaliyay ma jacayl baa kugu dhaliyay adiga aad dareemayso ma waxa kugu dhaliyay mid kale oo saaxiibka dareemayo kullu oga heesta dareen baa anigu midii ugu horeysay aan sameeyo
dabcan haa heestaana weliba waxa wada qaada xayaad xigmo iyo cabdirasakaaka waay heesta magaceeda waxaa la yidhaahdaa digasho wayahay heestaasna muuqaalkeeda waan ka tusi doonaa xoogay heestaasi digasha kuugu horeysay dabcan inkastoo aan ka yara gaabsaday oo dad badan oo ehelka ama qoyska ay gula taliyaan aan suugaantaan aada ugu talax tagin oona xataa isku nurinday inaan wax badan sameeyo midda kale ee ugu saameynta badnayd ee habeen dhoweyd rabadaan dhammaadkeedii ayaa anigoo koox fanaaniin la joogaa nin baa noo soo gala deetana wuxuu nooga sheekeeyey qiso aad aanu la yaabay oo aniga ilaa imika markaa sawirto aan idhahdaniyo haddii la idhaahdo qof wanaag leh qof samir leh oo dee dunida imika dul saaran marka laga tago dee ilaahay koonkan imika hadda dunidan imika la taaganya dad nool la idhaahdo qofkaas samir sii qofkaasaa siin habeenkaa sheekadayga sheekeeyey taydaanad wali maqaalhaya waxa dhacday ninkaasi nin dhalinyara buu ahaa annagoo koox dhalinyaro oo dee fanaaniin la fadhiyo uu noo yimid deetana adigu anigu gartay uu salaamay tv-gan ka arka adigu hadal caadi caynkaas kadib wuxuu iga warramay uu nooga sheekay markaa anigii dhowr dhalinyaraa dhisa ku dhacday wuxuu ii sheegay inay gabadh malaa 2 cisho ka hor ayuu soo furay gabadhiiba furay markii hore gabadha baraha bulshada iska barteen dalka dibadiisa isagaa dalka dibadiisa joogay wuxuu ahaa nin waxoogaa dee daahaan adigu ilaa 40 iminka madaxa la galay waa nin dee lacag waxoogaa ay shaqaystay intii uu xaggaa joogayna dee halkan dhulbu ku iibsaday markii dabcan halkaa markuu inataa ay halkan hargeysay ina tura joogto halkaa iska barteen waxay ka codsatay inuu soo wareego dalkan dabcan dhoofiga may dalban buu yiri inta waxa codsatay in halka kula noolaado halkan soo dego halkan ganacsi uga furo halkan ay nolol ka samaystaan waa aqbalay uu yimi uu mehersaday
aduu lacag aad u badan oo dee aan la yaabay buu guri adigu macaa meherkii macaa guurkii lacag qiyaas ahaan dhowr iyo 10 kun oo doolar ku gaadhaysa ayaga baxay soo xarintii meherkii wixiiba intaas markay dhacdayba wax dhacday buu guri inantiiba maalinba guri baan u iibiyaa oo salahan dhul baan u iibiyaa magaceedaan ugu qoraa nootayada maalin gaadhaan u iibiyaa magaceedaan ugu qoraa aduu dhowr wax markaan iibiyey magaceedii ama maalintii dambe hayaa waa doa iska binaadan waxa la yidhi binaadan damacyo dareentona dacarta ma macnaha maamahada soo gelaysaa wuxun baa muhiimadda wuxun baa weyaan dad iyo duurba waxaana degay maadee kaaga soo baxaya waxa dhacday ninkii markuu intii oo dhan u iibiyey adu muddo 2 sano bay wada noolaayeen dabadeetana wuxuu waxba u badan may dhaleen aniguna rajadaydu de kaliya gabadha uma guursanna u badalne laakiin muhiimaddu waa inaan wada noolaanay ubadka ilaaha bixiya dabeetana waxa dhacday wuxuu yiri maalinba bil marka la joogaba guri iyo gaadhay iibisa ma aamusa ku qoray magaceeda oo wixii magaceeda ku qornaa bil walba wuxuu markay hantidii aan yaabay markay 7 guri mar adigu qiyaas ahaan dhowr guri markay maraysi suu noo sheegay markay dhowr guri maraysi ayuu aan iyaga waadhi aan ku xagaad ku socota sati markii hore ma hadlayni maxay imka wahdash may waa lagu soo diray hadda warqadaysi adigu odayaal baa galay dad baa gartay galay way diid soo istaagtay may hadda warqadayda halaysi tele waxa isku hubtaa inta dabcan marka adigu ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu yiri marka kari waayay warqadii waa siiyay waana iska fataxaystay imika de mayadna magaalada ku jirtaa ana gurigeyga iskaga noolahay heerdahayga ganacsiga waan dusha ka maamushaa kulli soo ii sheegay maan oran maad noqonaysa ay matigisa laakiin hadana waxa lagu yiri waaba noqon lahaa intaan la xidhina corona keenan la xidho deena intaan u bixi lahaa dadna marka hees baan marka ka sameeyay aan area ka tiris bal waay waxa marka macnaha isagii ana u hadlaya ayada waagi kastee soo walaaciira wacdi soo kordhiya hawl buu wataa waagu markuu bariyo ama khayr buu ku rayman ama shar buu ku rayman waqti badan midaan islaha wadnaha ha u noqoto wehel soo weecano wari may badan macnaha dhulkaada ogeed buu soo maray wuu soo socday iyadun buu de wadnahaysa dees iyadu ma ku soo warneed siri wadankii xataa ganacsi ka samayso iskalaba joog farxad kula noolow laakiin dadku wuxuu yiri sunta hargaawayaan Soomaaliya walaalnimo hufo jacayl lagu wanjalo waxa taa ka daran waji gadashade walwaalasho hantidii wada xabsatee wacadka ku qaban wixii ba markaad urursato dabcan wacadka ku wuxuu yiri taan weersan iyo la jeclaa wanaag yana wiiqistiyo wadka ila jeclay macnaha dee wuxuu sheegay xataa in hantida dhanbayna iyadu ay anduunkeedii aragtideedu hayna hantidan gibigiisa gacanta ku dhigto aan dan kale kala dabcan way jiraan dad noocaas waajibkan gutaa wayna igu baxshee kuma seexan wali waxa maanta dhacay weligay kuma fikireen buu yiri gabadha ilaa halka soo martay dad waxa uu soo sameysay ayaa kooran doonta war waxaad noolatay Allahu akbar haya kowri intaas bay markaa ku dhan tahay heesta iyadoo dabcan wali isma oran kuma seexan wali waxa maanta dhacay